موشينو كبحثي بديس بس كان دري من قرته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. marka horeysa iyo ogolaada in aan maqaamkiisa iyo magaciisa aan ku salaamo wasiir dowlaha waxbarashada walaalkeena isla markaana xildhibaan golaha shacabka ka tirsan Abdiraxmaan Jaabiri xildhibaanada kale ee saaxiibadayda ah ee aan ka dhicina iyagana la socda ee halkan ay nagala joogaan walaalkayga Maxamuud Macalin Yaxay oo bahda waxbarashadana wax badan runtii xiriiriya baarlamaankana gudoomiyaha xeer hoosaadka iyo anshaxa iyo discipline-ka noo qaabilsan oo dadka xoogaa yarna waabiya maartay marka baarlamaanka lagu jiro odaygooda uu noo yahay maadaama xeerkii iyo anshaxii iyo wixii la isku qaban lahaa isaga uu gudoomiye noo yahay marka tixgelin gaar ah ayuu noo leeyahay iyo protocol gooni ah saaxiibada kale ee qaaliga ah oo aad xusteen oo saaxiibkayga Xasan iyo Daahir Amiin Jeeso iyo sidoo kale saaxiibkeena Xasan iyo waa ku mahadsantiin oo nin dhexda ka ciyaara iyo nin gadaal ka ciyaara iyo nin koonaha ka dheelaba waad naga dhigteeno waana garan karaa baryahan dambe baarlamaanka ciyaartii kululeed ee ka socotay inuu wariyaha ku halqabsanayo laakiin taasi waa ka duceysanayo gudoomiyaheenii horey waxaan niri kullaybo harantidiisa Allah naga koriyo kana cusub nirtidiisa runtii meeshan waa la wada joogaa senatoro iyo xildhibaano kale saaxiibadayda haddii ay soo fariisteen iyo intii hay-adaha dowladda ka socota qof waliba anoo maqaamkiisa idinku wada salaamayo giddi laakiin meeshan waxaa hortayda ka muuqda dad bahda waxbarashada marna aanan ilaawi doonin anoo markaa fursadayda uga faa'iideysanayo dhinaca marka laga yimaado siyaasadda iyo golaha macalinimo oo aan wax badan ku soo jiray arday wax badan aan soo ahaa markaan arko nin arday walwaalayo ama nin macalin qiimeynayo asaga waa igaga mudan yahay qof kasta oo mas'uul ah inaan u istaago ama u sarakaco kaasna waxaan astaana uga soo qaadanayaa hortayda fadhiyo mudane Sheekh Kutub iyo saaxiibkiisa Mukhtaar oo anadwa shabaab alcaalamiya oo hay'adaasi oo aan ognahay inta fursad dhalinyaro waxbarasho wax siisay oo itaal daran oo aanan awoodi karin iskaba daayay wixii iskool ay hirgeliyeen iyo wixii caafimaad iyo waxyaabaha kale ee bulshada Soomaaliyeed ee xilligii adkaada soo maray waxaana garan kara 22 sano dadkii wadanka joogay xaaladda markay dhanaanayd ee qof waliba qofka kale يوم يفر المرء من أخيه آخر مركي اللي قال الشيء جري وصاحبته وبنيه يا مركا هذا دتك عصب مقارن كران من غيمين كران for the sake of that إن كستوي بريها وحي عصب عالم كاجعل نقول ريريين أنا وحلنا هذا الجديد أبوه قديم فلا تريد لحياء النظر عصب قاد أركيسان قديم بعد على يسمع أبي سنة بخيل مرش inkastoo aad xogaa aad moodid annaga thaqaafadeena waa carabi Soomaaligana sida xiriiriyaha uu sheegay waa jecelnahay inkastoo meeshan hadduu mooshinka dhalanayo af Ingiriiska ee meeshan ku batay ka dhalan doono laakiin jaamacadda horseed dadaalkeeda iyo midda kale ee saaxiiba walaalaha reer Malaysia anaga ku sharfayno tookadan waa idin saamaxayna laakiin tookada dambe Ingiriiska yare iyo Soomaaliga badiya walba haddaadan uraynin meesha carabiga aan ka aragno
maxaa yeelay barta dadkana bara xadiid bay ku timid soo callimuu annaas ya idinkana barta maxaa yeelay ayadaa aayaddii qur-aankana nalagu sheegay oo nalagu soo dejiyey wax ugu qaalisan oo aan haysana diintan islaamka dhaqankana inaad ku dheganaatid afkaagana waa waxa adiga jiritaankaaga iyo kayaankaada muujinayo alxayu xayun bilisaanihi uu yiri ninkii shaacirka ahaa haddaad aragtid nin nool wuxuu ku nool yahay waa afkiisa iyo luqadiisa idaa ubida lisaana minhu qad ubida haddii laga tirtiro afkiisa waa jiritaankiisii oo dhan waa qof la tirtiray waaya maanta when you are speaking English language nobody knows from where you are laakiin waxaan ahay haddaad tiraahdo waa Soomaali marka ha lagu mintido afka Soomaaliga dowladaha horumaraya ee hadda ee ku mintidaya caalamka ee gartay waxa ay tahay dadnimada iyo jiritaanka madaxdooda xataa markay shirarka caalamiga ay tagaan ayagoo luqadaha kale ee sidii bad oo kale uga hadlaya haddana ma adeegsadaan oo kooda ay ku muujinayaan haddaad tagtid Turkiya afka Turkiga horta lagu baraya haddaad China aad tagtid you have to learn Chinese language first of all wadan waliba marka adiga aad tagtid marka adigana adoo Soomaali ah wadankaada joogo hadday luqadaada hortaada ka muuqan weydo adaa isdilade ah odaygu wuxuu yiri awootada bacadku qubaysatiya ersay ama iyadoo uur leh hadday haraanta ganto waxaan aad u jecelahay dadka aqoonta ehelka u ah idinka tusaale u ah idinka inaad noqotaan wax waliba kuwii looga dayan lahaa fursadaha aad maanta haysataan annaga ma aynan haysanin wax annaga aan haysanayna bariyihii sidiinoo kale aan wax baran jirnay idinkana maanta ma haysataan annaga jawi nabadeed ayaan wax ku soo baranay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kulliyadda afafka raggii ka qalijibay baan ahaa 4 sano lacaga la isiinay wax kale iska dhaaf pocket money ma gartay xagal jeeb jiif iyo cunto inta nala siiyo boodbood subaxdii bas oo halkaas intaasoo kilomitir jiro ayaa ugu soo qaaday macallimiinta markaasaan noogu tartamay qaybta Faransiiska ee bartaan si ay luqadooda u soo xoojiyaan semesterka afraad markay joogaan Paris loo qaaday kuwa Talyaaniga barta semesterka afraad markay gaaraan Roma loo qaaday kuwa Ingiriiska barta 4 semester markay joogaan London loo qaaday kuwa Carabiga markay 4 semester ay qaataan Khartoum loo qaaday oo ku yiri macadkii jaamacadda dawladda Carabiga waan ka soo qalijibinay markii dambe aan master degree ka soo qaadanay taa hore waa idinkaga roonahay oo jawi nabadeed oo arday isaga wax la siinay aan wax bixinayn ayaan idinku dhaanaa laakiin idinkana waxaad nagu dhaantaan master degree inaad iyadoo xaalad adag wadanka oo sida rabbi uu og yahay ayaa intaad dabar adeegteen waalid iyo walaal wixii idin garab istaagaygo wadankiina gudihiisa inaad ku qaadataan shahaado MA degree yani iyadana taasaad anaga nooga nasiib badintiin maxaa yeelay anaga 2 sano qurbaan fadhinay telefonkan hello markii la yiraahdo oo FVC la iskaga tuurayo sheekadiisa ma uusan oolin warqadii adiga aad soo dirto hal bilay dhexda ku soo jiraysay markaasaan nafta ku maaweelin jirnay warqadahan isdhaafinayay la dhacayay tigidhada dhanka ay marayaan dhakafaarka qaade ma dhexda waxa u joogay dhifsada la yaa adduunyadan dhibteeda ani lay dhameeyay ma dhamaado waqtiga soo dhaweysatay dheera muddadii waxaan xusuustaa marka runtii gabayada ee safarka aqoonta loo baxayo la xiriirsanayo kale ay tahay markay beedadka macallimiinteennii ama lecturerada ay tusaale u soo qaataan xusuusteedna way isrogi jirtay waxyaabaha aan ilaawi doonin ayaa waxaa ka mid ahayd مثلا
سأضرب في طول البلاد وعرضها سأضرب وحنسعنا يا وانسفريا في طول البلاد انت ايجرت عرضك وعرضها اي بلعيده انا لمرادي امدنتي رنجاريا او اموت غربا او اموت غريبا ام انا اللي قرنينا لمنايا يا فإن تلفت نفسي هدي نفتي ذكيريوت ويدمته فلله ذرها غرب كذا الله وإن سلمت هدي سنودقش كان الرجوع قريبا مرء وصون نقول دونا ولا اسكسو نقول حين ولا الدنيا دي dadka sidaas boholiyowgaas wax ku baran jiray baan ahayn waalidii walaal imtixaanada xilliga lagu jira xataa waxa la dhihi jiray warqadaha akhrinina ee ka imaanay dalka ila imtixaanku uu ka dhamaado oo waayo waa inta soo qafaad jeceshay dhinta adoo bari imtixaan gali raba ya muruga marka waxa laga yaabaa waxa ay rabeen inay sakhmaan waxa la yiraahdo waxaad akhrineysay murugadii ku saameysay ama gabadha jecleedo ka tagtay la yiraahdo bal aroos dhibkeeda ay leedahay Soomaa waxaad qortid iska dhaafay xaanshida hadaysan ka beelin nasiiba leedahay waa idinku hamaleynayna ana dalkiina wax ku barataan laakiin ogaada amaanada idin saaran tahay way ku culus tahay wax waliba amaano ayaa idin saaran macallimiintiina iyo waalidiintiina iyo dadkii wax idin baray ee idin soo ma aragtay gurmaday wadankan waxa la disaan ay tahay gartay inaad wax ku barataan abaalkooda iyo dalkan ee waxa burburiyay ee uu jahli yahay cid kale oo maanta la sugaa idinka aanan ahayn ma jirto ilaahayna berito ninka jaahilka ah sidoo oo la xisaabtamo way ka weyn tahay ninka waxa yaqaan sida loo xisaabtamo doono taan ina maanka aglisaan odayga iska jooga baadiyaha ee aan waligiisa wax kale loo sheegin ee iska aaminsan qabiilkiisa diin ahaan u aaminsan hadduu wax ku haleeyo cudur daar uu leeyahay laakiin ninka wax ku dulmiya aqoontiisa garashadiisa cilmigiisa ilaahay agtiisa carada waa uga weyn tahay ciqaabtana waa uga weyn tahay marka Soomaaliya waxa kala dilay waa jahli iyo qab iyo kibir oo aan loo ekayn adduunka dadna caqligooda isku maamulaan heer bay ku gaareen dad la caqligoodii caqli aan ahayn baa la isku dayaa in lagu wado way ku amaaneen way ku hormareen qaarkooda waxba aysan xataa caqligooda contribution ku hayaan laakiin way iska nool yihiin nabad iyo waxay ku anaga ummad waxaan noqonay caqligoodii in isku maamushaan la diiday inuu caqli kale in lagu maamulan aynan ogoleyn haddaba labadii dhexe waxay noo keentay iyo meesha aan ku noolnahay iyo sida adduunka uu noo arkayo wax ka duwan been ilma sheeganayo Soomaalidu ninkii ku yiraahdo kulligeeda waa wax khariban tahay been buu sheegay aniga safar baan hadda shalay iyo daraad maartay iyo usbuuc ka sii horeeyay waxaan joogay Puntland waxaan iri dadkan meeshan shidada badan dhulkooda markoo soo aragbo niman yahow meeshii waxaan ugu tagay dadkii inta la sheegay xaggay ka yimideen waa anigii bariyahan maamaayo hataa aruurinay waa aragteen ويا أخي أنا قدام غير حمر أنا عيب خسارة كورونا نحن دت كان عيب لما أفمروجس لي ويقولين أنك أفضل ذهب وين لأن دت كان غير شام قدو نمان هدلي هويدي وحمسيسو ما قالت مرة لي كتاجين تلك هذا كوما جبا أفكار يوسنكو جبين أنا وحلا حق مركز تكتب مرن كذي أقبل وذ قرح ذيك يقول عيسى وحن أرجني دت كيو دت كبا وح أي حبك أي كقول رقميان يا حضارة iyo dadnimada iyo qadarinta iyo soo dhaweynta iyo dadnimada jacaylka adiga laftirka aad xiisanaysid war meeshan jaamacad kale ma ku taalaan iyada tii kal noo sheegay tu kasi doonaan u jeednaa umada ilaahay abuuray qol waliba sida iska dhigto ya nin fawda loo dhalay ma jirto inuu waligiisa uu ahaado inuu dhible uu ka taliyo ma gartay al insaan ibn al bi'a laakiin waxa waaye hadii anaga maanta Soomaaliya annaga Soomaaliya isla wada ah goboladii wadanka ugu irmaana ugu barwaaqaysnaa ee nabadda ee dadka Soomaaliyeed ay ku naaloon jireen
hadday maanta iyada ay horumar la-aan waxbarasho la-aan aqoon la-aan dadkeedii wixii dalkan ay looga baahnaa ee kulle ay ka suuroobi weyday isla Soomaaliya dhexdeeda waa taan noogu xun in nasiib daro maanta aan ku hadli karin maxaa yeelay marka adiga aad isla socotaan xataa nin xildhibaan oo saaxiibkayga ah wasiirka deegaamadiisa ay ahayd aniga deegaankayga koonfur galbeed ayaan ka soo galay asiga xaggu ka soo galay markii asiga sida caleentii oo kale iskugu soo daadanay jaftina laga sii garow ilaa ay qardhe hal isbaar xataa aanan oolin anigana babaygii afgooy iyo cambi iyo qumbi aan u jeedo toor aan ku taga aanan lahayn ilaa aan kugu dhaarish hal dawlad ma isla sheegan karnaa tagna laftirkeeda mucjisadeeda inaad baartaana loo baahan maxamed siyaad bare fuur buu ahaa allah u naxariisto jaamiciyiinta wuu u yimaadaa wuu ka hadal siiyaa hadda kor wuxuu yidhi waa inaad waddanka waxa idinka uu soo saar aad jeclataan so anigu madaxweynihiinni maaha sigaarkan aan cabbayo waa kii dalka sigaar ubax la jiro waddanka laga soo saar jira laakiin odayga baakada leh ubax uu ku soo riday benson uu cabo hayaya la foolo oo dhalinyaro arday oo mashaakil ay joogeen odayga markuu dhameeyayba gumudka markuu riday iyaga waa aroorinayaan duqa waa ridaa waa aroorinayaan duqa markuu dhameeyey su-aal baad qabtaan midaa yidhi haadee macallin markaas haye markaas mudan madaxweyne waan qaadanay khudbadaada nagu hadlay inaan waddankeena jeclan laakiin madaxweyne sigaarkaad cabbaysay baakada unbaa ubax ahayd asiga bensel jaamiciyiintu waa sidaan ka rabo wax kasta la idin sheego inaydan qaadanin waa inaad daba gashaan waa salaam uu yiri waan naga tagay odayga marka waxa waaye waxa waaye إن الفقيه هو الفقيه بفعله ويرسمها نكي إمام شافعي ليس الفقيه بنطقه ومقاله قفك وإنه وح وشيء فعل كيس أديك أتكعب برتاعت كدرين قاضتها ذن مركز كبعد أي أديك وح وشيء أتقاضى نساء إذنكم حال عالية ما إهدين ذاتك إلهي كراميتهم علماء دي وإذنك إنما يخشى الله من عباد العلماء مركا إن رنتي كل إرادة مجعلي مركا نوكل واسيد ساعدك أو شيء باب السياسة وأنا كبحة يايو جامعتي ومدة مركان لكشر هاي معلق أنا قل اللي دقيسناي أي موجود إيرا رئيسا إيجيني ساكوده لفتر كي أنت أنا ندق وحسوسين جامعتي ومدة أمرو القيس وكذا بعد دقيقة نبكي ومن ذكرى حبيبي نيجا اهتمام أيان كبحة يا لكن وإسك إرادة كلمة صاحب كي برد سلانو إلى السعودية داير من جسو مركان سلانو كالأرض أي أغلى الجبسنين والبؤوهد لي كلمة أنت مفهوم مرقدي ومبان سوغانتي دي هدنا دب أنت أسكاك لفتي أيات تحيرو خليج فودي أنت كلا صور دحبحية من الزهرة من متقالجة تقرن ماي نور دالو دبيل عافي ماذا ومركل الدب مكوار أنا ومركل الأرض دي نقول بدنيت جامعة دي أمة الصومالية بس كمركو كر وصوف ولا حمر نحيبتي هذا كر أتكار كيسي هذا مركل معلنا وأن دينا عاقب موشن يقيلة يمورا يضياطة وحبا أنا نشرين هذا نحتاج دب مو أركي دون تابان ليه على كل حال لبس أنا نور لمن أنا صاحب بدي إذا لفتر كين عيار ما بكايل أنتو بركو كجرو ويري بركة ضد داي هذا يباش نقدر ماتو جامعة هرسية هنا مليس